waxaa isu yimid a'immatul masaajid dadkii imaamyaalka masaajidda ayaa isu yimid waxayna ka wada hadleen in magaaladeenna ay ku soo wajahan yihiin maalinka arbacada ah culimo waaweyn oo xagga qur'aanka ah sida sheekh cabdirashiid sheekh al-suufi xafidahullah iyo wadaad kale oo isagana masaari ah laakiin Nairobi jooga ay ku soo wajahan yihiin maalinka arbacada oo sidii loo soo dhaweyn lahaa sababta ay u imaanayaanna ay tahay in musaabaqa ama tartan qur'aan magaaladeen uu ka dhici doono waxaa sharaf inoo ah in martidaasi nagu soo socoto aan soo dhaweyno in magaaladeen Mandheera lagu qabto tartanka qur'aanka lagu qabto in culimo waaweyn oo caalami ah magaaladeen yimaadaan ayaa sharaf inoo ah waxaan Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa inuu noo soo celceliyo tartanka qur'aanka sanad walba laba jeer ama hal jeer ilaahay noo soo celceliyo ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa iyo culimada soo socota in ilaahay uu xifdiyo oo ilaaliyo culimo kale waaweyn kalena ilaahay subhanahu wa ta'ala wadankeena ka soo saaro dhammaan marka dadka shacabka magaalada Mandheera waxaan ka codsanaynaa inay culimadaasi soo dhaweeyaan maalinka arbacada ay soo degi doonaan tartanka qur'aanka u imaan doonaan iyo marti sharaf badan oo aad iyo aad u tiro badan muxuu ahaa ay nagu soo wajahayn maalinka arbacada taariikh 14 bisha December ay tahay marka insha Allah waa inoo sharaf magaaladeena in tartanka qur'aanka lagu qabto kulan ay nooga yeereen culimada hogaaminaysa imtixaanaadka ka dhici doona martartamada Mandheera muassasatul huda ay mada ugu yeertay kuna saabsanay ama daarnaay in looga in waxa way loogu soo dhaweeyo culimada ajillada ah oo imaadayso waskamid yahay Sheekh al-Muqri al-Kabeer Sheekh Cabdirashiid Sheekh al-Suufi iyo culimo waxa way aad u badan oo kala oo kamid yihiin Sheekh Ala al-Misri oo noo imaan doona hadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiraahdo biidnillahi al-Kariim arrinkaas oo Mandheera iyo culimada aimada dhamaan laga wada codsaday inay soo dhaweyntiisa iyo ka qayb qaataan iyo hagaajintiisa iyo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha lagu maamuusayo ka soo qayb galkeedo ayaad waxa way ku saabsanaay dhamaan insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa biidnillahi al-Kariim niya farxad badan wanaag badan qalbi furun ahlul qur'aan ahlullah wa khaasatuhu lagu soo dhaweyn doono xafladda loo dhigi doono quraanka kariimka oo ay dhigayso muassasatul huda taariikh 14 bisha 12 sanadka 2022 ilaa iyo maalmo dhowr biri sii socon doonto xafladdaas ayada soo dhaweyn aan soo dhaweynayna culimada sharafta leh ee ka qayb qaadanayaan imtixaanka qaadayaan iyo marti sharafta kale ee ka imaanaysa meelaha ka baxsan magaalada ama countiga Mandheera ka baxsan ka imaanayaan soo dhaweyn aan soo dhaweynayna iyo farxad aan ku faraxsanahay iyo ma garanaysa jacayl aan jecelnahay soo dhaweyn aan soo dhaweynayna ku soo dhaweynayna gacmo furun arintaas ayaan u sii tashanayni hadaan ahnay aimada masaajidda sidaas oo kale waxaan ajiri doonto ama aan ka sii wala hadlaynay culimada imaanaysa martida badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeye in magaaladeena iyo countigeena inta ay joogaan aan cilmigooda aan ka reebano ka faa'iideysano muhaadaraad iyo duco iyo ma garanaysa wixii khayr ah inaan maartay la wadaagno oo aan wixii khayr aan maartay ka reebano soona dhaweyno ku soo dhaweyno si sharaf leh hadaan ahnay reer Mandheera maxaa yeelay dadkaas waa ahlullaahi ahlul quraan ayaa la dhahay dadka ahlullaahi wa khaasatuhu hum ahlul quraan baa la yiri waxa way ilaahay dadka gaarka u ilaahay uu aqaano oo garanayo oo il raxmad leh iyo naxariistiisa iyo maartay jacaylkiisa isku jiro waxa way dadka quraanka xambaarsan iyo dadka jacayl waaye oo ku xariira marka walaalayaal arintaas waxaan galabta meeshan iskugu imaanay waxay ahayd inaan quraanka jacaylkiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo xafladda loo qabanayo karaameynteeda iyo sharfideeda inay markay imaamiintii dad imaamiin waxa galabta ilaa iyo 50 imaam iyo maartay waliba wax la jiraan ayaa fadhiyay oo ka sheegi doonaan ama ka hadli doonaan masaajidada gaarsiin doonaan khayrka dadka iyo sidii loo soo dhaweyn lahaay sida masaajidada maartay looga sii iclaamin lahaay arrintaas inay jirto loona soo dhaweyn lahaay ayaa maartay aan u joognay waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala han xifdiyo dadkeena reer Mandheera County waxaan u dardaarmaynaa maadaama aan ahay gudoomiyaha imaamiinta
walaalkiin sheekh warash aan nahay waxaan dardaarmayaa oo maaragtay anoo ku hadlaya afka aimada dhammaantood iyo afka culummada Mandheera oo dhan anoo ku hadlaya hadda waxaan dardaarmaynaa maadaama fasax dheer la galay ee ilmiheenii ay iskuuladii loo soo xiray primary iyo secondary kulli ay xiran yihiin dhallinyaradeenii ay in badan ay fasax dheer ay galayaan magaalada fasahaad badan ka jira dorowa ka jirta waxyaalo xuxuna ka jira waxa weeyaan ilmiheenii ay la yacmin ilmihii gacanta lagu qabto waalidiinta ha ka warhayaan ilmahooda mas'uuliyadda ha iska saaraana oo ilmihii ha ku soo dabaalaana masaajidada ha ku soo xiraana iyo culimada ha ku xiraana si maaragtay loo waaridiyeeyo oo looga ilaaliyo xumaanta iyo fasahaadka iyo maaragtay fikirada xuxun iyo wixii qalad oo dhan si looga ilaaliyo waa inay maaragtay markaas ay ku soo xiraan culimada iyo masaajidada ay ku soo xiraan cibaadada ay ku soo xiraan oo ay ka warhayaan ilmahooda ay la yacin midda koobaad taas waaye midda labaad oo kale oo gudbinayno waxa waaye oo fartiinta lacagaha madaxweynaheena maaragtay wadanka uu ku dhawaaqay hasalas fan la dhahay lacagtaas riba ayaa ku jirto dadkeenana aad iyo aad ay u qaadanayaan oo daldalanayaan arrintaas iyada waa ugu digaynaa ummadda islaamka waxaan leenahay arrintaas laga fogaado maxaa yeelay hal shilin oo ribo ood qaadato waxay la dambi tahay baa yidhi ama ka dambi weyn tahay qof hooyadiis 70 jeer ka sinaystay oo ka dhilaystay ayaa maaragtay la dambi tahay ama ka dambi weyn tahay marka arrintaasna waa ka digaynaa labada fartimoodna waa idin sii gaarsiinayni ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo dambigeenana allah dhaafo wadankeenana amni iyo amaan iyo nabadgelyo iyo roob iyo caafimaad iyo barwaaqo allah na siiyo ilaahay aan tawbakeena istaghfirta aan badina roob doon aan maaragtay aan ku roob doono quraanka ilaahay soo dhaweyntiisa aan ku roob doono ilaahay khayr ha waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmatullah